السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أمد الصوماليد وإدي والسلامي مقعي هو دكتور حنان أحمد موسى oo dooga barateen la talin iyo daaweyn intaba haddii aad danaynaysid ama aad qorsheynaysid inaad uur yeelatid waxaan rabaa inaad idiin soo gudbiyo la talin ama talooyin aad raaci doontid oo kaa caawin doono sidaad u yeelan lahayd marka ugu horeysa waxaan kugu hambaliyaynayaa fikirkaaga ama go-aanka aad qaadatay midda labaadna waxaan kula wadaagayaa talooyinkan soo socda qodobka koowaad markii aad rabtid inaad uur yeelatid ama aad danaynaysid waa inaad number 1 joojisaa haddii aad isticmaali jirtay waxyaabaha looga hortag uurka sida family planning ama birth control waxyaabaha loo yaqaano qodobka labaad waa inaad qaadataa waxyaabaha loo yaqaano multivitaminiska ama daawooyinka diyaarsan oo vitaminiska isku wada jira oo loogu talagalay in qaataan hooyooyinka rabo inay uur yeeshaan way kala jiraan mid waxa waa pre conception waaye oo before pregnancy midna waa pregnancy hooyada intay leedahay midna waa markay dhasho ka bacdi waxyaabaha u baahan tahay vitamins marka kooban sidaas darteed waa inaad qaadataa kuwa loo yaqaano preconception ama before pregnancy mar walba si walba oo u isticmaashid cuntooyin isku dheelitiran kama maartid kaniiniga sina qaadatid waxa uu sameeyaa wixii nafaqo u baahneed adiga cunugaaga ayuu idin dhameystirayaa qodobka saddexaad waa inaad qaadataa folic acid maadada loo yaqaano oo kaniini ah taasoo aad kaga caawinayso sameysmiga cunuga bilaha ugu horeeya special 3 bilood ugu horeysa kaasoo diidaysa cudurrada badan oo ku dhaca carruurta special waxa uu ku qaas ahaan ugu weyn cudurka loo yaqaano neural tube defect oo ah cunuga dhabarka soo furan adhootida u dhasho taasoo dhib weyn ah oo qalliin adhootida lagu xaliimaanay asaka lagu xali karin qodobka afraad waa inaad cuntaa cuntooyin isku dheelitiran cuntoyin isku dheelitiran markaad in badan ayaan dhahnay waxaan rabaa inaan idiin sharxo cunto isku dheelitiran waxaa loo yaqaanaa waa cunto saxanka marka ay ku jirto ay ka kooban tahay carbohydrate waxa loo yaqaan number 1 oo carbohydrate waxa loo yaqaan baastada bariiska qamadiga waxyaabaha abuurka soo baxo dhan canjeerada muufada rootiga waxaas dhan waxa waaye waxa ka samaysan carbohydrate sidoo kale waa in saxankaas cunto ku jirto ay ka kooban tahay proteins sida vegetables ama fruits ama fishki malaayga ukunti wixii dhan proteins waxyaabaha cuntooyinka ah inay ku jiraan iyo sidoo kale fat waxa loo yaqaan fat oo xeerta mar walba muhiim ay tahay jirka wax uu ka maarmo jirto wax walba waxa loo baahan limit inay leeyihiin ama aad amount cayiman ka isticmaashid laakiin waxa la diiday inaad iska badisid ama aad iska yareysid fatka waxa loo qaybiyaa mid ah plant fat iyo mid ah animal fat mar walba waxa la doorbidaa mid plantska ama dhirta oo ah sida saytuunka afkaadhada lawska saliidiisa waxyaabahaas oo dhirta ka samaysan sidoo kale fatskan oo xayawaanada ka yimaado oo ariga looda geela ayadana waa muhiim laakiin waxa la diidaa inaad iska badisid si aad dhowtida cudurka ugu noqonin qodobka shanaad waa exercise waxa loo yaqaan ama inuu qofka sameeyo jimicsigaas waxa waa eray badan yahay muhiimadda jimicsiga hooyada aan dheena sameeyo ma ahan inay waxyaabo culus qaadayso ama jimicsiga nimanka sameynaya sameynayso muhiimadda waa exercise inay sameyso ama socod sameyso socod sida uu naqaano socodkaas oo ah waxa la diiday hooyada iska jiiftaan noqoto ama meel iska fadhiisan badana waa inay movement oo jirkeeda helo si uu si fiican u shaqeeyo exercise waxyaabaha uu caawiyo waxa number 1 oo ah inuu qofka u ziyaadiyo blood circulation ama wadnaha muqaha wadnaha ayuu wuxuu siinayaa awood ah inuu dhiig badan tuuraan dhiig badan markay tuuraan xubnaha jirka waxay helayaan amount ku filan oo dhiig ah si fiican u shaqeeyaan marka labaad waxyaabaha laga faa'iido exercise waxa waaye in uu qofkii markuu exercise sameeyo waxa yaraana waxyaabaha stress loo yaqaan ama walwalka kaas oo caqabad ku ah hooyada rabta in uur yeelato haddii walwal uu jiro mostly waa dhib badan tahay inay yeeshaan sidaas darteed waxa waa exercise wuxuu yareynayaa jirka ayuu wuxuu dareensiinayaa inuu wax walwala uusan jirin ama walwalka ayuu ka nusqaaminayaa hurdadana uu ziyaadiyaa oo qofka inuu hurdo fiican helo ayuu qayb weyn ka yahay dadka qaar dhaa hurdo la'aan hayso more exercise ama socod badan aad samaysid waa more aad jirka intuu daalo aad hurdada u baahanaysid exercise ka sidoo marka saddexaad waxa uu ka caawinayaa inuu jismigaaga uu ka dhigo caydka loo baahnaa marka dheena waxa waaye inuusan cayd zaid noqonin miisaan aad u dhacsan uusan noqonin qofka normal uu noqdo labadaba miisaanka hooyada miisaankeed aad u hooseeyo iyo hooyada miisaankeed aad u sareeyo probability-ga uu ku yeeshan ayadana waa yar tahay sidaas darteed wuxuu ku yeelaa inuu maintain gareeyo body weight-ka qodobka lixaad waxa waaye in hooyada mar walba booqato dhakhtar ay ku xiran tahay hooyada oo u ah dhakhtar joogto ah
kaasoo ka jeegarayo waxyaabaha cudurrada halista u ah ama u diidaya hooyada inay uur yeelato ama haddii uur yeelataan caqabad ku noqonayo waa inuu laga jeegaraya oo la baaraa oo la ogaadaa inaysan qabin haddii qabtana management saxa loo sameeyo ama qaabka iskaga ilaali lahayd inuu ziyaado ama waxaas dhan looga hortago qodobka toddobaad waa inay hooyada qaadataa talaalkaasoo muhiim u ah in hooyadii iyo cunugeeda labadaba safe ahaadaan wuxuu ka ilaalinayaa talaalka waxaa ka mid ah inuu hooyadii tetanada ama markay dhasho qalabka lagu jaraayo ama cunuga ambalakarka looga jaraayo inuu dhowtay tetana ku timaado ama robela cudurrada qaar oo hooyada u gudbo waayo balaasintada uga gudbo cunuga u gudbo kuwaas uu keeni karo inuu cunuga ama qaab daran u sameeyo qaab malformation ah ama hooyada inuu dhiciso ama cunugii uu ka dilmo ay ka ilaaliyaan marka hooyada waa inay vaccinationka ama talaalka qaadataa si waxyaabahaas laga hortago qodobka sideedaad waa inay hooyada qaadataa mar walba ay u booqataa isbitaal kaasoo loo yaqaano preconception visit intaysan uurka yeelan waa inay booqataa si talooyinka maanta bixinayo camal loo siiyo cuntooyinka noocyadaas cun la dhaho kuwa oo ziyaadinayo proteinskeeda si jirkeeda oo weel oo shaqeeyo ama hormoonskeeda soo ziyaadaan iyo in haddii cudurro hale oo waqti hore soo baxa ay jiraan looga manage karo si uusan dhowta severe ugu soo noqon sidoo kale waxaa muhiim ah qodobka 10aad in hooyada mar walba ay rabto in uur yeelato ama uur ay leedahay in ay iska ilaaliso ama iska xadida stress waxyaabaha loo yaqaan ama walwalka wax walba oo problem u keenaa waa inay isku daydo inay xal u raadiso xalkaasoo noqdo inay isdejiso ama hurdo fiican qaadato ama exercise badan sameyso ama si loo siiso cunto fiicanna ay cunto stresska waxyaabaha u keena waxaa ka mid ah inuu cunuga si qaab daran u sameysmo ama hooyadii dhowtidii cudurro badan ku yimaadeen sida preeclampsia eclamptic oo ah seizurka waxyaabahan hooyada loo yaqaan eclampsia ku dhacday dadku u yaqaaniin oo ah inuu jareys ku yimaado kaasoo ayadiina saameynayso cunugiina saameynayso waana xaaladaha ugu khatarsan ee hooyooyinka warkale ku yimaado qodobka xig waxaa waaye in hooyada iska yareyso tubaakada ama aysan isticmaalin haddii isticmaali jirtay tubaakada alcoholka sigaarka waxyaabahaas oo dhan waa mamnuuc in hooyada uur la isticmaasho qodobka ugu muhiimsan oo la rabo in hooyada xasuusnaato waxaa waaye hooyada waxay soo xisaabsanaysaa maalinta caadada ee ku dhacday maalinteedii koowaad ee caadada ayay waxay ka xisaabsanaysaa maalinta koowaad way soo tirinaysaa maalinta 14aad markii ay joogto 2 biri ka hor iyo 2 biri kadib waa maalmaha ugu diyaarsantaa ukunta in uur la yeelato hooyada sidaas darteed waa inay maalmahaas ay ka faa'iidaysataa si ay uur u yeelato hooyada haddii ay rabto inay uur yeelato markay isbitaal booqato ama dhakhtar u tagto oo laga daaweynayo xanuuno kale ay ka cabanaysay waa inay mar walba dhakhtarka u sheegto inay danaynayso in uur yeelato si uu iskaga ilaaliyo ama uu korin daawooyin saameyn u keeni kara cunugeedii ama hamigeeleedu ah inay uur yeelato qodobkeenan kale waxaa waaye waa in hooyada ka feejignaataa xayawaanada guriga la joogo sida yaanyuurta iyo ariga iyo waxyaabahaas oo dhan waa in aad iskaga feejignaataa cuntada cunaa cuntooyinka waxyaabaha inay isdhexgalka xayawaankaas iyo ayada iska ilaaliso si cunugeeda seef ugu ahaado uurkeedan u sii jiro sidoo kale waa in hooyada qaadato hurdo ku filan hurdo fiican oo si fiican jirkeeda u seexday waxay ka caawinaysaa hooyada hurdo fiican qaadato inuu jirkeeda stress kaga yaraado walwalka waxaa dan yaraadaan jirkeeda isku diyaariyo si fiican oo normal u shaqeeyo hooyada marka cunto balance diet ah oo isku dheelitirneed oo khudaarta aan soo sheegay protein fat carbohydrate wixii dhan ka kooban ee cunto hurdo fiican ay qaadato probability-ga u diyaarsan tahay inay pregnant noqoto waa high sidaas darteed qof allaala iyo qofkii danaynaya mawduucan ka hadalna maantay hadduu qofkaas uu yahay qof dumar ah oo rabto inay uur yeelato ama hadduu qofkaas yahay qof rag ah oo rabo in uur loo yeesho labadaba waxaan ku soo dhaweyn doonaa isbitaalkeena Medical Therapeutic Center